السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كنالka dhugasho magacaygu waa Cabdiraxmaan Suudi. Waxaan maanta idin soo gudbinayaa qiso aad u xiiso badan oo mudan in lagu cibro qaato. Qisadaani waxay ka hadlaysaa wiil jeclaaday gabar, sidoo kale waxay ka hadlaysaa dhibaatada baraha bulshada, waxayna ku bilaabanaysaa sida tan. Ugu horreyn intaynaan u gudagelin muuqaalka, waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo dhammaan asxaabta qiimaha badan ee nooga yimi kanaalka walaasheen Ruwayda Style. Saaxiibayaal soo dhawaada, kanaalku waa kanaalkiinii, aad baana u mahadsantihiin. Sidoo kale walaashii Ruwaydana waan u mahadcelinayaa. Sharaf iyo karaamo korkiina ha ahaato. Haddaba aan bilaabano qisadeena. Waxaa jiray nin taajir ah kaasoo dhalay 2 gabdhood. Tan weyn waxay waalidkeed ka kaalmeyn jirtay arrimaha ganacsiga, waxayna ku mashquuli jirtay adduunyada. Tan yarna oo la oran jiray Aala waxay ahayd gabar akhlaaq wanaagsan, dhanka diintana aad ugu fiican, waxayna jecleed acmaasha khayrka ah, waxayna caawin jirtay dadka baahan, aad ayayna u qurux badnayd. Maalin maalmaha ka mid ah, 2 gabdhood waalidkood waxay faa'iido u heleen hanti aad u badan, waxayna 2 gabdhood mid walba u hadiyeeyeen lacag dhan $1 milyan. Tii weyneed waxay soo gadatay gaari qaali ah, halka tii yaraydna ay go'aansatay inay dhisto masjid weyn si ay ugu tukadaan gabdhaha uguna bartaan arrimaha shareecada. Markii la dhameeyay dhismihii masjidka, Aala waxay timi masjidkii waxayna ka codsatay dhammaan shaqaalihii inay ka baxaan masjidka si ay u fiiriso qaab dhismeedkiisa, laakiin si kadis ah waxaa masjidkii ugu haray mid ka mid ah shaqaalihii oo ahaa wiil dhalinyaro ah. Markii uu soo baxay wuxuu arkay Aala, wuxuuna la yaabay quruxdeeda, qalbigiisana waxaa ku dhacay jacaylkeeda. Wiilkii markuu u soo laabtay gurigiisa wuxuu dareemay xanuun iyo ciriiri badan, kuwaasoo ay sababeen aragtidii Aala. Waxaa u timi walaashiis oo aad uga naxday, maadaama uu ahaa wiilka keliya ee la dhashay iyada. Markii ay weydiisay sababta xanuunkiisa wuxuu u sheegay inuu jeclaaday gabadha la dhaho Aala oo uu dhalay ninka hantiilaha ah, wuxuuna yidhi haddaanan guursan gabadhaas waa dhimanayaa. Wuxuuna ka dalbaday walaashiis inay u tagto Aala una sheegto arrinkiisa iyo inuu rabo inuu soo doonto uuna guursado. Gabadhii waxay u naxday walaalkeed, waxayna aaday Aala iyadoo ka baqsan inay ka diido codsiga walaalkeed, Ilaahayna ka baryaysay inuu u fududeeyo arrinkeeda si uu walaalkeed ugu sii noolaado. Aala way soo dhaweysay gabadhii waxayna ku qaabishay weji furan. Gabadhii waxay u sheegtay Aala arrinka walaalkeed. Aala waxay ku tiri waan aqbalayaa, laakiin waa inuu 40 habeen oo xiriira salaatuleyl tukadaa, markaas kadib ayaana isu soo noqonaynaa. Gabadhii waxay u tagtay walaalkeed waxayna u sheegtay dalabkii Aala. Wiilkii wuu farxay wuxuuna yidhi waxaan bilaabayaa isla caawa. Wiilkii wuxuu isla habeenkii bilaabay salaatuleylkii, laakiin waxba iskama bedelin fikirkiisa iyo jacaylkii uu u qabay Aala. Habeenadii 2 iyo 3aadna isla sidaas ayuu ahaa, balse habeenkii 4aad wuxuu u dhowaaday Ilaahay. Habeen walbana wuu siyaaday u dhowaanshihiisa Allah ilaa uu dhammaystiray 40kii habeen. Qalbigiisana waxaa galay jacayl kale kaasoo ka daran kana awood badan kii hore, waana jacaylka Ilaahay. Markuu dhammaaday waqtigii, wiilkii wuxuu u diray walaashiis Aala, wuxuuna u sheegay inuu dalabkeedii fuliyey. Gabadhii waxay u tagtay Aala, waxayna u sheegtay in walaalkeed uu u mahadcelinayay maadaama ay sabab u ahayd inuu isbedelo. Waxayna u sheegtay inuu noqdo mid Ilaahay ka jecel wax walba, hamigiisa ugu weynna uu yahay raaligelinta Ilaahay. Aala way ku faraxday arrintii waxayna tiri hadda waan aqbalayaa inuu i guursado, laakiin hal shardi ayaan wataa, waana inuu xifdiyo Qur'aanka Kariimka ah oo dhammaystiran. Gabadhii waxay u laabatay walaalkeed waxayna u sheegtay codsigii 2aad ee Aala. Wiilkii wuxuu yidhi alxamdulillaah, xilligii lagu guda jiray 40kii maalmood waxaan xifdiyey 4 juz oo aan habeen walba ku tukan jiray, waxaana Ilaahay ballan kula galay inaan xifdiyo dhammaan Qur'aanka Kariimka ah. Ilaahayna waxaan ka baryay inuu ii fududeeyo arrinkaas. In ka yar sanad kadib, wiilkii wuxuu xifdiyey dhammaan Qur'aanka, wuxuuna ku galay tartan, wuxuuna maamulo ka noqday masaajid weyn ee ku yaala magaalada. Intaas kadib, wiilkii iyo walaashii iyo qoyskiisii waxay u tageen Aala, waxayna ka aqbashay guurkiisa iyadoo weliba aad ugu qanacsan.
way isguursadeen wayna aqal galeen wiilkii iyo aala waxayna qabsadeen xaflad aad u qurux badan. muddo kadibna waxay u dhashay wiil qurux badan. ninkii wuxuu ahaa mid mar walba shaqeeya si uu ugu filnaado reerkiisa. xaaskiisa waxay ku fakartay inay caawiso ninkeeda, waxayna ka codsatay inuu u soo gado kombiyuutar si ay ugu shaqayso mid ka mid ah shirkadaha online-ka, lacagta ka soo baxdana ay ku caawiso reerkeeda. ninkii wuxuu aqbalay codsiga xaaskiisa, wuxuuna u soo iibiyey kombiyuutar, balse waxaa dhacay arrin la yaab leh. aala waxay noqotay mid mar walba ku mashquulsho kombiyuutarka, waxayna furatay aaladaha laga isticmaalo baraha bulshada. maalin walbana waxay ka baran jirtay qof cusub, ilaa ugu dambayn ay baratay wiil kaasoo ay la samaysay xiriir. wuxuuna u sheegay inuusan la'aanteed noolaan karin, aadna uu u jecel yahay. iyadiina waxay ku xirantay wiilkii, waxayna jeclaysatay inay mar walba isticmaasho aaladaha baraha bulshada, gaar ahaan Facebooka, si ay ula hadasho wiilkii ay xiriirka lahaayeen. muddo badan ayaana arrinku sidaas ahaa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa aala ninkeedu wuxuu ka yimi shaqadii xilli hore iyadoo aan filanayn. iyadoo qoraysa sheeko ayuuna u soo galay ninkeedii. xaaskii way naxday wayna boodday. ninkii wuxuu akhriyay farriintii ay qoraysay, wuxuuna la kulmay hadallo akhlaaq xumo ah uuna soo qoray wiilka ay xiriirka la lahayd xaaskiisu. waxaana ka mid ahaa inay iska furto ninkeeda, isaguna uu guursan doono, labadooduna wada noolaan doonaan inta noloshooda ka dhiman. uuna noolaan karin iyada daraaddeed. xaaskii waxaa u bannaanaatay hal waddo, taasoo ah inay qirato khaladkeeda, balse ninkii ayaa go'aansaday inuu furo xaaskiisa. markii uu furay kadib, aala waxay isku dhaceen wiilka ay xiriir wadaagga ahaayeen. xiriirkoodiina saas ayuu ku dhammaaday, gurigeediina wuu dumay. dhammaan noloshii qoyskuna way burburtay, waxaana sabab u ahaa baraha bulshada iyo sheekadii khiyaaliga ahayd oo wiilku la dhisay aala. xaaskii waxay u soo laabatay ninkeedii, waxayna ka dalbatay inuu cafiyo, balse wuu ka diiday, wuxuuna yidhi lagama yaabo inaan mar damba kugu kalsoonaado. saaxiibayaal, halkaas ayay ku soo dhammaatay qisadeenni quruxda badnayd. waxaana ka faa'iidaynaa qisadan in lamaanahaaga aad ugu yeerto daacada alleh, iyo qodobka ugu weyn ee ah inaad ka digtoonaato dhibaatada baraha bulshada. reerkaas oo dhan noloshooda waxaa burburiyey aaladahaas. qisadeenna intaas ayay ku eg tahay. fadlan muuqaalka like saar, lana sii wadaag asxaabtaada. haddaad ka heshayna qisada qaybta kommentiga nugula wadaag. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.